mooshin ka dhan ah golayaasha deegaanka ayaa ay golaha wakiilada soo dhigeen 23 xildhibaan oo golahaas ka tirsan sidaasna waxaa saxaafadda u xaqiijiyay xildhibaan Saciid Cilmi Rooble isagoo amuurtaas ka hadlayana waxa uu yidhi xeer baa jiray dee la yidhaahdo xeer 23 oo gobollada iyo degmooyinka khuseeya xeerkaasi wuxuu ka hadlayaa shaqada barasaabada shaqada dawladaha hoose golayaasha deegaanka meeyarada waxaasoo dhan ka hadlaya waxaa kaloo jiray habka duqa ama meeyarka looga qaadayo xilka ayaa iyaduna jirtay markaa horta runtii waxaa berigii hore ahayd simple majority xeerku wuxuu ku soo baxay berigii hore haldheeri waxa weeyaan micnihiisu markay 11 مثلا قبل يوم كله أما بالبراء كله مركز تنادوا دجود قلاش الدجاج كوبي لا تيهين كولم كود وكوبي طبعا كولم كاسو هدوف فريستو ليه بريد الكريسي مركا كولم كوبي طبعا ليه بريد أريد الكريسي طبعا يا تو وحواشي قلاش الدجاج قبل واحد مريسي 15 meeyar bay rideen burcana waxay rideen 6 markaa meeyar berberi 4 bay riday markii sidaa loo waashay golayaashii deegaanku waasheen ayaa golaha iyagu wax ka bedelay waxa la yiri 2/3 baa laga dhigay yaani mesela halkii 6 ay ridaysay 6 xubnood golaha deegaanka ay ridayeen waxa laga dhigay 14 inay ridaan mudooyinka dhowr sanadood saas ahayd arrintaas waxay meesha ka saartay golayaashii deegaanka shaqadoodii wada shaqaynayay ninkii meeyarka waxay ka dhigtay nin madaxweyne ah nin awoodii ku taklifala nin siduu doono yeelaa 3 daloolo ma qabsanaya xildhibaanadii مثلا كوبي تركي بربنامج كوبي تركي قبلي تضبون بولا صاحبية أو سينيا أو أرنيا قد يدلوك هذا صلى عليه ده تلا أفريقيا تبغي كلك قدرنا نسيك سوقايا ده تلا ولو تاجواي ودك ما تويس بدلون نظام بويا شو الدولة عصوب على لطي دولة وحصح يسوي وحبدل يسه مدحوينه وحصح هيا أو وحبدل هيا أيا غير كي بيسوي معها صلى عليه marka in lana jaan qaado weeye sida shirgudoonkeegu yahay waa sida waxaanu ku soo celinay marka meel dhaxal oo dhignay tii waalida ahayd civil majority ga hayna waanu ka deynay tii 2/3 ka ahayd 2 daloolo 3 daloolo labana waanu ka soo rognay waxaanu ka dhignay kala badhiya hal مثلا golaha deegaanka waa 12 مثلا de 6 degme eeda ah sida burco gabley boorame berbera ceergaabo laascaanood waa 12 bay imka ridaya waa kala badh iyo hal halkii hore waalid ahaydna way dhaantaa halkan dee xukunka militariga ee dictatorshipka ana way ka hooseysaa qorshahaasaanu sidaa u soo dhignay waa sida shirgudoonkeegu yahay waa sida golaha iyagu madaxweynaha dhan ee qaranka ku ridi karo soo imika 28 ma lihin 42 baan madaxweynaha mushkiilkiisa impeachment ku dhigi karaa marka dee iyagu inay dhaafaan dee tiradii madaxweynaha lagu ridaayay dee maaha halkii baan soo dhigay halkii shirgudoonkeegaan soo dhigay siyaasaa golahu gartay maxamed jaamac umar GTN TV magaalada Hargeysa